wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah shirkii uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya ee maamul goboleedyada oo maanta baaqday maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in ciidamada ammaanka ay baadigoobayaan kooxihii dadka shacabka ku dilay degmada wadajir ee gobolka Banaadir saraakiisha ciidanka xoogga oo shacabka ka dalbaday inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab dowladaha Soomaaliya iyo Masar oo 3 heshiis ah ku kala saxiixday dalka Masar ciidamada ammaanka oo saaka baaritaana ka wada duleedka degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya oo dhaliil u soo jeediyay beesha caalamka markale ku celi warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa subaxnimo Jimcaha taariikhdan waxay ku beegan tahay 19 bisha Afraad sanadka 2019 warkaas oo dhan saaka waxa aqrinaysa wariyaheena Maryama Cabdulla Xasan aad iyo aad u mahadsan tahay Cali Ibrahim Cabdullaahi subax wanaagsan Jimcaha wanaagsan dhageystayaal warkii oo dhan ku soo dhawaada shirkii uu iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo lagu qaban lahaa magaalada Muqdisho ayaa maanta baaqday أحمد محمد إبراهيم ayaa ka waramaya sida la sheegay waxa maanta baaqday shirkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo isku yeeray madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ka jira ka ku aadanaa midka amniga qaranka ee Muqdisho ka dhici jiray kadib markii ay diideen sida la sheegay madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira qaar ka mid ah ayaa imkanadan ku sugan magaalada Nairobi sida madaxweynayaasha Jubbaland iyo Galmudug iyadoo maalmaha soo aadan ay ku biiri doonaan madaxweynayaasha Puntland iyo Hirshabelle balse waxaan la sheegin inuu ku biiriyo madaxda Nairobi ku sugan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Lafdagareen hay'ashee horay uu u tagay magaalada Nairobi dalka Kenya madaxdan ayaa Nairobi kula kulmaya wadamada beesha caalamka oo dib u soo cusboonaysiisay barnaamijkii macaamilka gaarka ah kaasi oo loogu taageeri jiray maamul goboleedyada dalka ka jira barnaamijkooda horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimada qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay diideen inay aqbalaan casuumaadii uu u diray madaxweyne Farmaajo iyagoona ku xiray shuruud oo ay kaga baaqsanayaan ka qaybgalka shirkan haddaynan madaxdu ay fulin weli kama aysan soo bixin villa Soomaaliya wax war ah oo ku aadan shirkan lagu sheegay in maanta uu baaqday maadaama aysan imaan magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay baadigoobayaan kooxihii dadka shacabka ah ku dilay degmada wadajir ee gobolka Banaadir Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya yeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyay howlgalladii u dambeeyay ee ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho afayeenka oo la hadlayay KNN ayaa sheegay in ciidamada amniga ay ku guuleysteen xaqiijinta amniga Muqdisho dhinaca kale afayeenka ayaa soo hadal qaaday falkii habeen ka hor dad isku qoys ah loogu laayay xaafadda Kaabagoday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxa uuna sheegay in ay ku daba jiraan laamaha amniga baaritaanna uu socdo howlgaladii u dambeeyay marka uu soo noqono ciidamada amniga ee magaalada ka wadayna runtii weli waa mid socda oo howlgaladoodii ay ku guda jiraan iyadoona ay guulo ka gaareen meelo qaarkood in markaasi ciidamada ay howlgalo ka sameeyeen runtii waxaa howshaasi gacanta ku haya laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan sida xogta aynu ku holeynana ilaa hadda waxay sheegayaan in ay ahayd dad famil ah waxyaabo ka dhaxeeyay laakiin waxaa hadda gacanta ku haya feelkaasi iyo baaristiisaba laamaha ammaanka iyaga ayaana ka wasugaynaa qaabka ay wax u dhaceen iyo weliba waxa keenay in falkaas uu dhaco mar walba dadkan kooxaha nabadiiska kooxaha argagixisada waxa ay ka faa'iideysanayaan waa bulshadeena oo ku soo dhaxdhuumanayaan waad la socotaan in marka culeys la saaray dagaalada hadda ka socda ee shabeelooyinka ay markaasi magaaladii ay ku gumaadayaan iyagana shacabkii ciidankeedana uu markaa hor istaagsan yahay sidii shacabkan ay u badbaadin lahaayeen waad la socotaan waxa ay bilaabeen hadda inay tahay in gawaaridii shacabka ay wax ku xiraan in goobo qaarkood ay bambaanooyin kusoo tuuraan laakiin ciidamadayna waxa ay weli muujinayaan dadaal ku aadan sidii intaasoo idin loo baabiin lahaa hadalka afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa imaanaya xilli laamaha ammaanka ay baaritaano ay ka wadaan magaalada Muqdisho kaas oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada caasimadda ah
saraakiisha ciidamada xooga Soomaaliya oo ku sugan gobolka Hiiraan ayaa shacabka ka dalbaday inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab. Cali Ibrahim Cabdullaahi warsoosaaraheena saaka ayaa ka waramaya. taliyaha qaybta 27aad ee ciidamada xooga dalka maxamuud macallin oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgallada ay ciidamada xooga ay ka wadaan deegaano horleh oo ka tirsan gobolka Hiiraan. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in haddii aysan dadka u midoobin la dagaalanka al-shabaab ay dhici karto dhibaatooyin fara badan, isagoona tilmaamay in beelihii joogay duleedka beledweyne xilligan ay ku biireen ciidamada xooga, islamarkaana waxa uu sheegay dhowaan ay qaadi doonaan dagaal ka dhana al-shabaab, isagoona shacabka ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka lagula jiro al-shabaab. waa garan kartiin dadka duusan fayoobeyn ama caloosha su ficlan wax waajib ay fulin karaan malaha, cadow waa ka faa'iideysanaya. marka haddii aan laba dhinac u qaybsannahay waxay noqon doontaa in weligaas aad u qaybsanaan oo qaybna ay joogaan cadowga joogo, qaybna uu joogo mataqaanaa maaragtay dawladda ay joogto. aan ka bilaabaynaa beledweyne in qoraxsi saacadda laga bilaabo aan mataqaanaa ciidan ka mid ah oo hore u deganaa oo beel ahaan u hubaysnaa haddana ciidan ku soo bireen ay bilaabeen xuduudda inay jebiyaan, dadka kala qabay ay jebiyaan. dadkaasoo hadda ku xaraysan xeerada ciidanka nabadgalaay ay leeyihiin dhowr boqol oo ciidan ah, taasna ay waajibaadkooda inay fulin doonto ku soo bireen ciidamada ayagana dib loo sharciyin doona daalidmo. xaaladda amni ee gobolka labada gobol waa isteedkii ugu weynaa hadda isid ballaaran weeye. waxaan la wadaagaynaa dadka markii mataqaanaa cadowga mataqaanaa hal mid ay yeeshaan wuxuu noqon doonaa mataqaanaa in difaacaas uu noqdo mid laga badiyo uu noqon doonaa cadowga. waxaan raadinaynaa marka hore calaalfuyoobi, dadka inuu soo calaalfuyoobaan ay leeyihiin hal cadow inay ogaadaan. hadalka taliyaha ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo militari oo ay sameynayaan ciidamada xooga dalka. dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa saddex heshiis ah ku kala saxiixday dalka Masar. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramaya. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ku sugan dalka Masar ayaa waxa uu kulamo la qaatay madaxda kala duwan ee dalkaasi. kulamada oo intooda badan looga hadlayay iskaashiga labada dal ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii dowladda Masar ay u tababari lahayd ciidamada Soomaaliya iyo sidii ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Masar ay waxbarasho ugu heli lahaayeen dalkaasi. kulamada marka ay soo dhamaadeen kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad waxauna ka warbixiyay heshiisyada ay gaareen dowladda Masar. wasiirkada arrimaha dibadda hadda inay jirto dadaal xoogan oo loogu jiro sidii xiriirka Soomaaliya iyo Masar loo xoojin lahaa dhanka siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada iyo tababaridda dadka Soomaaliyeed. arday jaamacado la siiyo ha noqoto ciidamo la tababaro, ha noqoto iskaashi dhaqaale iyo iskaashi siyaasadeed. waxaan kala saxiixanay saddex heshiis. kan u horeeya wuxuu ahaa iskaashi ka dhexeeya maxadka diblomaasiyadda ee Masar iyo maxadka diblomaasiyadda ee Soomaaliya oo hadda dib loo habaynayo, dib loo hagaajinayo. kan ku xiga wuxuu ahaa iskaashi iyo wadatashi ka dhexeeya labada wasaaradood, wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, oo la iskaga kaashanayo lagana wada tashanayo arrimaha siyaasadeed iyo xiriirka arrimaha dibadda ee labada dal. tan saddexaadna wuxuu ahaa iskaashi dhexmara wasaaradaha kala duwan ee dalka Masar iyo Soomaaliya. wadanka Masar waxaa ku sugan arday Soomaaliyeed kuwaasi oo wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka Masar, iyadoo dowladda Masar ay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhinaca waxbarashada. ciidamada xoogga ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka waxa ay baaritaano ka wadaan duleedka degmada Waajid ee gobolka Bokool. baaritaanada ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii ay uga hortagi lahaayeen weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan deegaanada hoostaga degmada Waajid ee gobolka Bokool. saraakiisha ciidamada xoogga ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyo militari ay ka wadaan duleedka degmada Waajid ayagoona baadi goobayo xubno ka tirsan al-shabaab. maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in deegaanada maamulkaasi ay ka bilaabayaan howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab, kaas oo ujeedkiisu yahay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. warka subaxee radio kulmiye ay la socotaan dhageystayaal akhbaaraadka caalamkana markan haddii aanu eegno. ra-iisul wasaaraha dalka
waa ra-iisul wasaaraha dowladda ay qaramada midoobay taageerto ee liibiya ayaa cambaareyn dusha uga tuuray beesha caalamka. fays al-siraaj ayaa cambaareeyay aamusnaanta ay beesha caalamka ka aamusan yihiin xoogaga soo weeraray caasimada dalkaasi ee Tripoli. Mr. al-Siraaj ayaa warbaahinta u sheegay in dadkiisu ay dareemayaan in beesha caalamku ay meel cidla ah uga dhaqaaqayso. waxa uu intaa ku daray in haddii lagu guuldareysto in la taageero dowladdu ay beesha caalamka u aqoonsan tahay inay horseedi karto cawaaqib xumo, isagoo nafarta ku fiiqay in kooxaha ama kooxda IS ay ka faa'iideysan karaan xasilooni darrada dalka Liibiya. guud ahaan dhageystayaal warkii subax oo saako Jimcaha aad ka dhageysanayseen Radio Kulmiye Muqdisho ayaa inta kulan cidii warka dhasago waxay dib ka heli karaan isagoo maqal qoraal sawiraynta oo tabartayno internetka ku leenahay ciwaankeena radiokulmiye.com ama radiokulmiye.net. dadka ku sugan magaalada Beledweyne waxay naga dhageysan karaan Radio Wadani, Galgaduud gaar ahaan Cadaado waxay naga maqli karaan Radio Cadaado, Gaalkacyo waxay naga dhageysan karaan Radio Hayaan, Mareykanka kale FM live stream iyo Facebook live na waad naga la socotaan. nabadgelyo.